الرحمن الرحيم daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh ee wadani TV la xiriirow daawasho wacan oo wanaagsan waxaan caawa idin gabagabaynaynaa barnaamijkii aan idinku talagalay ee ahaa dowladda dhabta ah waase goorma oo caawa aan idin gabagabaynayo marka hore aan idin xasuusiyo koox saddexaad ay Soomaalida ogeyn ayaan rabaa in aan taabsiiyo oo u bixiyay ubucda Soomaaliya macnaheeduna waxa weeye haddii qofku sirtaada uu helo oo sirta si fudud lagu siiyo uu ka adag yahay waxaana lagu samaynayaa wax kasta oo la rabo waxaana noqonaysaa adoo dhan qof hoysan oo dulaysan Soomaalidu waxay ahayd dad sirtooda aan la geli karin lana haynin sidaa awgeed waxay gacanta sirta u gashay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo hogaaminayaan reer galbeedka waxayna xulfuliyiin u ah bariga Afrika sidaa awgeed markaan isku soo wada duuba ayaan magaca waxaan u bixiyay la yiraahdo ubucda Soomaaliya oo macnaheedu ay tahay in Soomaaliya iyagoo ay maamulaan tay rabaana ay noqonayso say rabaana ay ugu talagalayaan sidaa awgeed ayaan u leeyahay dowladda dhabta ah ee Soomaaliya waxa ay dhalanaysaa xilliga 2012 ilaa 2013 oo ah dowladda haatan jirto ee shariifka hogaaminaya iyo Farmaajo oo u dhamaatay in shariifka lagu qabo ololahan shaqooyinka ah ee doorashada madaxweynaha Agoosto 2011 dhacayso waxaana la rabaa in la keeno nin Farmaajo oo kala ah oo isagana xiriirto inta mabadiidka hadhay hadhowtana wixii la dhahay oo haddii la dhaho xilka dhigi karo awoodsaasna aanan lahayn haddii kalena Farmaajo in kulligiisa madaxweyne uu noqdo oo ra'iisul wasaare sidiisoo kala ah helo oo laga soo helo koonfurta amaba ra'iisul madaxweyne koonfurta laga helo reer galbeeda oo qof Soomaaliya leh sida Farmaajo oo kale haddaba waxaa dhacayso haddii dowlad dhaba oo dareemayo ay jirto shariifka dadaalka ballaaran ee ay al-shabaab kaga xoreynayaan Muqdisho ayaa loo dayn lahaa taa ayaana ah in aanan hal marna laga rabin oo aysan rabin kooxda aan u bixiyey ubucda Soomaaliya in ay koox awood leh ay aragto Muqdisho ku aragto si ay taasi u dhalanin ayaa 20 sano waxay soo maareynayeen hadba kooxa ay magac u soo sameeyaan dowlad loo magacaabay oo lagu talagalay in lagu ilaaliyo inayna awood aysan kooxna ku yeelanin xamar gacantana amniga aysan u gelin taasi oo maanta ay ka cararayaan ilaa bishii 8aad shariifka inay gacanta u gasho shariifkana wuu ogsoon yahay in taasi lala damacsan yahay shaqooyinkaas isagana wuxuu rabaa Agoosto intaan la gaarin bishii 8aad inuu amniga xamar gacanta ku dhigo oo uu noqdo koox awood leh oo la tartamo oo la gorgortamo taasna ma dhacayso oo shariifka fikradaas waa qaldan yahay waayo qolyahani horay ayay waxaasi ugu tababushaysteen oo haddii xataa lagu arko xamar inaad qabsato 4 meelood 3 waxaa markaasi la amrayaa kuwa Ugandayska amraysa kooxda aan u bixiyo ubucda Soomaaliya in ay wax tilaabo oo kale oo dheeraad ah sii sameeyeen halkoodana ku ekaadaan oo taakulaynta ay idinka jarayaan waxaa dhacaysa markaasina in al-shabaab mar kale dib u soo noqoto oo idinkana naga qabsado dib inay soo raacdaysto oo noqoto inay boqolkiiba 40 50 ay mar kale iskugu imaataan shaxda noocaasi ah ayaa ah mid aan u leeyahay dowladda Soomaaliya dhabta ah waatee oo macnaheeda ay tahay marka dabayaaqada sanadan ay dhamaato 2011 labadaasi aan idin sheegaya la sameeyo waxaa dhacaya in bilowga ilaa bisha dhexe ee 2012 ay soo galaan ciidamada golaha ammaanka ah oo 12 dowladood ka kooban Afrikana u badan hogaaminayana korneel ay soo magacaabeen qaramada midoobay waxayna noqonaysaa in uu hubka ka aruuriyaan Soomaaliya oo dhan ayna noqdaan in ay macala dowladda ku meel gaarka xilliga jirta ay dhahaan isa soo sharax oo doorasho xor ah ayaa la qabanayaa dimuqraadi doona waxaa markaasina
binjiga ugu jiro kooxdii ugu talagaleen ee 20 sano u soo maadeynayaan inay xilka u dhiibtaan oo loo soo sameeyey xisbi lacagna loo dhiibay iyaga ayaana ku guuleysanaya noqonaya dowladda dhabta ah ee Soomaaliya hanan doonto waxaana soo haraya carruur iyo haween daldaraysan oo cidii lacag leh markaasi dooranayso ta ayaa dowladda dhabta ee Soomaaliya ka dhalan doonto sida awgeed ayaa annagana baaqayaga wadaniyadeed ee wadada TV aan u furay ay tahay aqoon-yahaniinta culamo-diinka hooyaya abo gabar iyo wiil dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed in ay la socdaan oo ay noqoto wadnahooda kaliya ee ay dhageystaan wadani TV oo waxa uu sheego aan isha laga maran oo la arkaysaan barnaamijkiina halka ayaan ku soo gabagabeeyay aan ugu magac daray dowladda dhabta awaate waa soo goorma oo aan dhihi doono waa 2000 ilaa inay gasho 2012 xataa waxay gaari kartaa 2000 ilaa 14 oo sababtoo ah xilliga markii la yiraahdo doorashooyin iyo xisbiyo cusub qolqodaha siyaasadeed ee halka ka dhashay ayaa dib u dhac balaaran keeni kara gala ilaa 2014 halkaasi dowladii ka dhalata ayaa ah midda rasmiga ah ee Soomaaliya ku soo dhigan doonto waa mahadsantihiin annagana waxaan ugu talagalay in dhalinyarada Soomaaliyeed aan kicino oo aan tusno wajiga ku soo foole si ay ugu tabaabushaystaan oo ay noqdaan inay buuxiyaan kaalintii SYL oo kale waa barnaamijkii halka inoogu dhamaaday dowladda dhabta awaate waa soo goorma waana mahadsantihiin annagoo baxda wadani TV waxaan idin leenahay ismaqal damba oo xiiso leh والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته